sida arday galaaska koowaad dhigata oo kale ayaa loo kala celcelinaya mid kasta fudeed iyo degdeg aan la ogeyn waxa laga dhaxli karo ayaa ka muuqda taasi oo xitaa sababtay in aan dhigta loo dhigin qool raxmad iyo alla ka cabsi xambaarsan oo uu akhrinayay mid ka mid ah xildhibaanada balse taqwada alle ay ka muuqatay اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلها وابدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها halka markuu marayo codbaahiyaha ayaa laga xirtay sida nin hees ama wax aan macno lahayn soo gudbinaya oo kale isagii waa uu ku naxay oo uu la yaabay waayo waxa uu ka hadlayay waa khayr iyo ahadiis ka sugnaatay suubanaheena maxamed calayhi salaatu wasalaam wax la dhageystana ay ugu wanaagsan tahay iyada balse aan ahayn in la dhibsado waxa uuna isaga oo ciil cunaha tuban yahay uu si sahlan u yiri ma iska soo gabagabeeyaa ilaa inta uu ka hadlay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya kaasi oo garab istaagay yirina ku soco warka khayrka leh buuq iyo sawaxan ayaa bilowday tani waa caadada golaha shacabka Soomaaliya markaanse waxa la filayay isbedel laakiin mar qura waxay goobta noqotay meel fawda ah waxa isdagaalaya xildhibaano mooshin watay oo lagu gacan seeray iyo ilaalada xarunta golaha shacabka waxa fadhiya ra'iisul wasaarihii xukuumaddiisa u doonayay codka kalsoonida xildhibaano iyo golaha magacaaba waxa toos u daawanaya shacab Soomaaliyeed oo dhiban rajana ka qaba in dadka sidaas u dhaqmaya ay wax taraan hab dhaqankan aan la jeclaysan dulqaad la'aanta xildhibaanada iyo in marka laga reebo mid iyo laba mooyee badi xildhibaanadu yihiin kuwa dantooda mooyee dan bulshada aan ka fikiraynin waxay madashan ka dhigtay mid sawir cad ka bixisay halka aan joogno inay tahay meel liidata golihii shacabka Soomaaliyeed ee laga sugayay inay ummadda masaakiinta ah u hadlaan dalkan u horseedaan wax qabasho ayaa ka badin la inay dantooda shakhsiga ah gaaraan waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay markan sida caadada ah waxa la dhaarinayaa golaha wasiirada ee la ansixiyay waxaase la yaab leh in dadka la dhaarinayo ay ku jiraan kuwo aan weysadu aysan u dhoornayn oo la arkayay bilowgii hore ee madasha iyagoo gacan qaadaya dumar isla goobta jooga dhaarta oo aan ahayn wax sahlan oo lagu degdego ayaa sahal ka ah xaruntan golaha shacabka marka la joogo waana tan sababta markasta inaan wax horumar ah laga gaarin dalkan waayo been lagu dhaarto ma ansaxmayso allana ma aha kan la qiyaami karo ee waa kan wax kasta u jeeda si kasta xukuumadii Xamse uu soo dhistay waa la ansixiyay oo waxa cod ka siiyay 229 xildhibaan waxaase laga sugayaa wax qabad la mahdiyo ra'iisul wasaare Xamse hadalkiisii koobnaa ee uu jeediyay waxa uu ahaa mid degan oo damqasho bulsho ay ka muuqatay si shakhsiya marka loo dhageysto waxa uuna aad ugu celceliyay inay tahay degdeg in loogu gurmado dadka abaartu saameysay waajibaad dastuuriya oo qaran waxa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dan qaran waxa ilaahay mahadiisa oon aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto haddii ilaahay yidhaahdo waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doonno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daaraan dhacaya sidii aan amniga wax uga qaban lahayn iyo sidii aan ku fulin lahayn brograamkaas ballaaran ee idin hor yaalla innaga oo wada soconna wada shaqayna is-aaminsan isla xisaabtamaynaa si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha aynu hortaagan oo dhan waxaan rabaa mar kale inaan idin mahad celiyo sida ballaaran ee runtii aad ansixinta noo siiseen waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaanno inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xukuumadda cusub howlo waaweyn ayaa hor yaala oo kaliya aan abaartu ahayn waxaa ka mid ah sida ay u wajahi doonto ciidamada Itoobiyaanka ka socda ee dhulkeenii soo galay ee ilaa iyo maanta ka wada duqeynta gobolka Hiiraan iyo meelo kale oo ka tirsan dhulka Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxda shabaab
oo intii dalka khallaasaha isqabsiga siyaasadeed uu ku jiray dhankooda aan wax tallaaba loo qaadin.